sodigay wadan sida dhibi arro 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 maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadaha iyo daayaha furo maanta waa dhabti iyo dhaxalgalkii bulshadaha iyo daayaha furo waxaan hoteelka Ambassador kula kulannay wafdi ka socda dawladaha European Unionka iyo dawladahan kale ku jirin ee Norway iyo ay ka yihiin Sweden iyo Belgium iyo dad badan oo kale waa dawladaha caawiya processkan democratization iyo doorashooyinka marka waan uga waranay xaaladda talooyinna waan kala qaadanay waxaan u sheegnay in mas'uuliyiinta xisbiga qaar xidhan yihiin qaar dhaawacay soo gaadheen sida Faadimo Saciid oo kale hadda inta halkan fadhino waxaan loo soo sheegay in Xamza Khayre la xidhay Gabriel lagu xidhay kildina dhaawac la gaarsiiyay marka waxaan u sheegnay in waxa soo dhan iyo wixii irregularity kaga cabanna doorashooyinka waxaan ognahay in meelo badan ay ka dhaceen waxyaabahan de procedure raacsan oo xeerkii la bedelay lagu tuntay ama goobaha haato ama markii la soo qaadayay oo laga reebay muraaqibiintii sanaaduuqda qaar kood laga reebay markii gobolka ama degmada la keenay in dadkii anaga noo wakiilka ahaa hadidaad loo geystay qaar laga soo saaray marka Gabriel oo kale meelo badanna cabashooyinkaas naga soo gaarayaan waxaan ugu ballan qaadnay cabashooyinkaas iyadoo qoran inaanu la wadaagno halkay ku haboonaayna aanu gaarsiino oo anagu sharciga uun la tiigsano wixii xeerka jabiyay si wax u dhaceen soo dhaqsa badanna aanu soo saari doono war saxaafadeed aanu kaga hadlayno waxyaabaanu kaga cabanayno waayo waxa jira meelo badan muraaqibiinteedii laga soo saaray oo la wadaog yahay waxa jira meelo markii la tirinayay dadka iyagii aanay joogin waxa jira meelo loo diiday inay darsaan waraaqahan oo keenaan oo akhriyaan waxa soo dhan baa jira waxa jira bilmasal meel goob jaamacadda ah oo dadaan daw oo ahayn inay galaan meesha ay 8 aroonimo ilaa 8 habeenimo ku jiraan mar dambe la ogaaday oo yidhi waxaanu ka soconaa commissionka exam commissionka ka socon oo imika xidhan Blaze ku hayo markaana dadkaana cid baa soo dirtay cid baa adeegsatay cidaan oo ka daba tageynaa wixii irregularities ama istaba marinayno aragno waanu sheegaynaa sharcigu maana numaraynaa wax sharciga baalmarsan samayn mayno intaas uma yana u sheegnay warbixintana way naga sugayaan iyana waxay nagu waaniyeen dhowrka maalmood ee soo socda inay yihiin maalmaha ugu muhiimsan marka in la isdajiyo qaynuunku lagu dhaqmo qolana aanay qaynuunka dhaafin waxaanu haynaa meelo barasaabadii ay gelayaan meelihii wax lagu tirinayay goobtii wax lagu tirinay baa barasaabkii soo gelaya aan xaq u lahayn inuu soo galo oo markaa dee cagajuuglayn ku noqonaysa muraaqibiintayadii marka waxaa soo dhan intaan ururino ayaanu commissionka u gudbinaynaa iyagaanu ka warsugaynaa taageerayaashadan waxaanu leenahay meel wanaagsan bay maraysaa natiijo wanaagsan baa noo soo baxaya isdajiya ananu sugno natiijada waxaanu uga digaynaa dadkan isticmaala social media oo imika qaarkood qorayaan xisbigaas helay intaas lagu kala helay inaanay waxa fidina wax beenahay wax soo baxay ma jiraane aan dadka la sii guubaabin oo dadka la sii kicin marka taana waanu uga digaynaa kuwa xisbigayga taageeray kuwa xisaabta kala taageeraba waxaanu leenahay ku dhaqmana markaas ka jooga waayo waa halis weeye waana la diidan yahay qofkii sameeyana xeerka qabanaya aad iyo aad baan u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.